soo dhawaada maanta waxaa inii wadaa muuqaal dhiirigelin iyo dardaaran iyo hani arrinkeedii meesha uu ku biyo shubtay iyo meesha uu ku dambeeyay. Gabdho badan ayaa ay weydiiyo kontaroolka naftaada gacantaada yuusan ka bixin maxaad ka wadaa. Anigu waa ogahay hani waxa ku dhacay. Kontaroolka nafteeda ayaa gacanteeda ka baxay. Hani maxay tiri xalay mar laga wareystay asayada iyo Maxamed khilaafka dhexdooda wixii uu ku bilowday iyo dhibaatada ay hani la soo martay Maxamed. hani xagee ayay dhibaatada uga timid gabdhaha Soomaaliyeed maxay tahay dhibaatada haysta. Haddaba muuqaalkan hani baad kaga wareysanaynaa cododna waa inay wadaa meesha dambana waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan igu cadeynayaa hani iyo dhibaatada meesha uga timid. Haddaba soo dhawaada koob shaax sokorlaan soo qaata. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan wanaagsan marba dharkan haddii aragtaan ninkii qaboobaha ayaa iskeenay waana soo salaamay in adeerkay. السلام عليكم وتاجيه سنة كان قبوه وح قوته وحلا حملي كرمه ما أنا قليل كذا ما وح كلا جرو لك وما ضدنا عبنا اسمع على قالدي مع النرويجية قصوا اشترينا عيو ما أنت ساكن سجيد سنقولون قبل حي حضو أيت هاي طبعا ساعة قلبنا بكل ولا ينسى قلب ورسمع دكتوري لها بلان كلام لها سكت بوريك ترينا حتى معنا عادي سود وهذا بروبليم كي يعني بالعوي كسود بعد حمد هم يذكر maalin kasta gabdho cusub ay ugu soo biiray gacan ku soo dhawaada shalay waqti aan muuqaal ku soo gariyaan waayay oo aad iyo aad ay u mashquulsanaa maantana sidoo kale muuqaalkan uu soo daahay soo marka sorry inuu muuqaalkii soo daaho oo hadda imaado oo ka xumahay soo marka muuqaalkii aad iyo aad u soo daahay laakiin waa muuqaal muhiimadiisa leh kan raali ahada carruurta ay guriga joogto soo keenay marka hadda xogaa yaro shanqara maqasha bulshada shanqarta adduunka sorry shalay labada maalin darad waxaan ka hadlay barnaamijka ahaa diinteena iyo xadgudubka lagu haayo aad iyo aad ayaa looga falceliyay waana ku mahadsantiin komentiyadiina sharafta badan oo quruxda badan aad iyo aad u mahadsantiin diinteena waa muqadas islaamnimadeena aad waa muhiim dhaqankeena waa muhiim asaguna laakiin diinta ka muhiimsan haddaba aad ayaa iga mahadcelinayaa dad badan oo caan ah oo kadibtay ka hadlan way jiraan dad inta aan ka hadlan ka hor ka soo hadlan way jiraan anigu aan arag laakiin dib aan ka arkay laakiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin diinteena aan ilaashano annaga ay mas'uuliyad ka saaran tahay inaan ilaashano marka maanta waxaa inii wadaa insha Allah taala hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijka hani waxa ku soo kordhay ayaan rabaa inaan inii wado iyo waxa aan arkay hani habeen hore familiga dhan ayaa isku wada tagay waxaana libxeena codsatay in $100,000 loo aruuriyo dukaana loo furo mataqaana loo yarna loo qabto maadaama carruurta lagala wareegay laakiin taas aniga ruuxadeedan ku jiro way ila qaldan tahay sababta xitaa hani maanta mas'uuliyad $100,000 ay ku qaado malahan dukaan loo furo mas'uuliyad ay ku ilaashto ama maskax ay ku ilaashto ma haysato runta ma kala rabo marka hani caafimaadkeeda lagu dadaalo oo ayada dayactir loo raadiyo oo hadii carruurteeda la raadi mooyaane hani ma joogto waqtigii dukaan loo furi lahaa taas ayadoo laga soo fakarayo oo leeyahay waa la isku afgaranayaa laakiin laga codsaday hani inay joojido social media oo ay ka nasato oo ay ka fariisato ayadoo way ka biyadiida sababta xitaa meesha kaliya in nafisaad ku dareemayso waa social media qofku markuu problemsan yahay oo problemkiisu bato inta qofka problemkiisa qari karo waa inta wali ay maskaxdiisu cayma leedahay laakiin qofku markuu heer gaaro oo inta abuse-ka iyo xanuunka iyo culayska laga badiyo oo heer gaaro qofkaas nolol u arko wax kasta uu u sameey karaa dartiis hani ma awoodo inay inta Maxamed la hadasho caydo ama la dagaasho rumag la rabo inay Maxamedo tiraamahay laakiin family kale markay la hadlayso ama Soomaalida kale waa la dagaalay waa iska cilo waa caaye ma fahantay marka hani inta mataqaana ay halkan imaanay ku nafisayso Maxamed ayay ka indhad banaysaa oo waysan asagiisa ku naqas bixi karin haday haysaleed haniyad ay ku nafisto ama ay ku naqas bixi karto ama ay naxariis agtooda ku dareemayso way la joog leed laakiin waxaan la yaabayaa waxay tahay qofku markay meelo cadahay meelo ka madow gabadhaas bahdilka lagu sameeynayo sida loo caynayo sida naagaha social media jir ugu waarsanayaan alla Soomaaliya sida gabadhaas hadallo qaldan loo dhahayo sida qalbigeeda loo jabinayo ana xanuunsanayo marka la caayo ayadu hadal dhanka ma soo baxay shib say u aamusata marka caalad lama waxay leedahay walaalayaal ciyaalkeygii Maxamed iyo raadiye walaalayaalow ciyaalkeygii iyo Maxamed iyo raadiye waxa maqli jira qofkaas maalinta caafimaad ugu dambeeyay eragaas ku dhaganaa
hadda ka hor Soomaaliya waxaa darisna la ahayd gabar xanuunsan hadda way geeriyootay kulay qowraas qobar iska xanuunsan ilaa yaraanteeda xanuunku bilowday haystay ahayd qof maskiin ahlu jannay gabadhu marka xaasina dhijiray mar way caafimaadaa marna way xanuunsataa gabadhaas dhalinyarinimadeedii waxay ahayd sida aan ugu dareemay hadda wadaas waan yaraa laakiin hadda sida ila tahay waxay ahayd dadka mataqaana aad iyo aad ku nadaafada badan dadka howlkarka ah ahaydaan isiri maanta dhan gabadhaas waxay wadataa xarig waxbay xiriyay waxbay toosay waxbay qabee marka lagu kaco xarigeedii kuwaale xarigeygii maaragteen xarigeygii xamdiya iga xaday xarigeygii maxmuuda iga xaday xarigeygii hebela iga xaday xarigeygii dhahay qofku marka meesh markii wixii ugu dambeeyo mataqaana caafimaadkiisa ugu dambeeyo kuna gabadha haniya meesha laga gaaro waa ninka gabadhaas waxaa laga yaabaa xanuunsaneed in il uga dhacday sida wax u qabanaysa marka maanta dhan ay wax qabato wax tosho wax sameeydo ay ku nanaadeen ayadoo xanuunsan marka gabadhan haniya dadku sida aan wax u arko ma arkaan ninay u waalatay war gabadhu nin ma weynin gabadhu nin ma weyn boqolaal ayada ka xunaa rag helay hani nin ma weynin laakiin hani nin kale ma rabto daawana uma aha dareenna uma haydo xushmadna uma haydo rabitaanna uma haydo hani nin kale dareen uma hayso nin kale rabitaan uma hayso nin kale ma rabto gabadhu naagtan qooqa haayo nin bay u waalatay ninku soo yahay ma nin qataraha war maxaa qatara maxaase qatar la'aana nin gabadha ayada heerkan gaarsiiyey oo naxariis daradan ku jirto oo ayada dhibaya hadduu nin fiican yahay oo jacayl ay hani iyo naxariis ku artay ugu waalanayso yaa asa u naxariisanaa laakiin gabadha ninkan intuu maskaxda ka qabsado oo abiyusay cid aan asaga ahayn nolol ma aragto waa cilmi boodhar iyo hodan cid aan hodan ahayn oo cilmi boodhar nolol arkay jacayl ah gabadhaan cid kale nolol ma aragto gabadhaan wax hayriya jacayl maaha ee gabadhaan maskaxda inta laga abiyusay ninkan maskaxda dhamuu la wareeyay hadda marka waxyaalahan la yaabaan rabaa inaan soo gudbiyo gabadhaan lacag loo aruuriyay daahir cala soo ayaa lacag u aruuriyay Soomaali weyn uga aruuriyay lacagtii loo aruuriyay adinku ma aragteen maxamed aysiis kisay maxamed siiday iyo kis kale meel geeday aqoon marka hadda lacag dambe ilaa dukaha lagu furo hani waxaan kala sheega in lacag loo aruuriyo damama ilaa hani maskaxda ku caafimaado eeronaad hadda waxa daahir cala soo ayaa waxa ay ku hadashay waxa ay hani sheegtay sababta uu maxamed u dhibaateynayo sababta ilmihiidu ka qaatay sababta ka dambeeyay inuu maxamed sidaan u galo ay hani xalka dhawaajisay waana sababta aan maanta rabay inaan iga dabageeyo bal ila dhageysta hani xal waxay tahay iyo fal celinta ninka dhan ee daar cala suulay ninka weyn ee waxa uu ku hadlaayo ilaa ay hadda hani cidfanta weyna aba bal ila dhageysta insha Allah أمو وجدوجة وجبنا أمو سحرة. والله جبنا وقوة لا تعلن كان. جبنا وحدا تجري والله بالله وأنت لا ينسنا. لعكت أمو كان تبرك وأروش والعكت يا غاد. لعكت مص. هنا inaad muuqaalka hani aragtaan muhiimadu waa intaas hani waxay sheegtay maxamed inay jecesha rabto tirina ila joog asaguna uu sarrabin inuu la joogo inuu sarrabin inuu la noolaado inuu sarrabin inuu dhawaado ayaduna ay asaga adduunyada ugu jecesha rabtana ila noolaado waxaan la yaab asagu ma rabo inuu ayada la noolaado ayaduna asagii ayay magan iyo maceen biday laakiin waxa isweydiin leh inta oo intaasoo caruur oo ka dhalayo sababtoo u rabay maxay ahayd maantase marka ay xanuunsatay ee ay dhibaateysmatay ee ay garab iyo gaashaan u baahatay sababtoos u rabin maxay tahay taas ayaa mudan in la isweydiiyo hanise
dadka ilmaadeeradeeda hole nin aan adeerkaa lagu siinaya iyo ragga inta meesha soo kordhaa hani anaa ku guursanaya maxamedna ku ilowsiinaya hani maxamed ma ilowsii karaan hanise nin aan maxamed ahayn nin ma u taqaanaa uma taqaano ma u taqaan waa ka cilmi boodhariya aniguba qadaraan soo arkay qaararkii hodani inuu eebahay inay qatalin qarya laabtiina hani nin aan maxamed ahayn waxuma aragto cid aan maxamed ahaynna hani ma caawi karto maalintii ay caafimaadka qabtana waqtigeeda quruxda badnaan iyo awoodeedii iyo xooggeedii maxamed horumarkiisa ayay gelisay hadday maalintaas hani ay geli lahayd nolosheeda ay nolosheeda horumar gaarsiileed iyo faamiligeeda waxaan aaminsanaha maanta meesha ay taalama taaleen maxamed faamili oo wadanka asagu keensaday ayaa 4 gees ka degan iyo kuwa hor u joogaba laakiin hani hal qof oo faamiligeeda kamidana waxna uma qaban wadankani ma keenin xooggeedii awoodeedii waxay gelisay maray maxamed daaweyso iyo maray asaga taraag u gaday horumarkiisa ay ka shaqeeyo asagina maanta meel cidla ay uga tagay waa sababta aynii iraahdo naftiina horumar gaarsiiya nafta ninkaagan horumar gaarsii taadan horumar gaarsii taada adigoo iloobay qof kale kabihiisa tolin adigaa kaba la'aana cid kale kaba tolidkaaga ma baahno kabtaada tolo wixii kaa soo harno ummadda kale kabaha ugu tol hooyadu waa raasumaalka iyo tiirka iyo awoodda guriga haddaad caafimaad beeshid caruurtaadana way caafimaad beelayaan haddaad qurux badnaatay faraxsanaatay waxbarashadaada iyo noloshaadana aad hagaajisid caruurtaada iyo bulshada Soomaali in badan oo kamidna way hagaagi doonaan haddaba waxaan kuu sheegayaa waxay tahay bili aadanku maalinta adigu aad u baahan tahay ayuu kuma baahno laakiin maalinta aad u baahnayn cid kastoo bili aadana ayaa adiga kuu baahan kuna jecel kuna ixtiraamaysa kaana dib ordaysa haddaba waxaan kugula talinayaa oon kugula dardaarmayaa inaad noqotid lama helaan iyo lagama maarmaan ha noqonin qof ayadu aana maarmi karinin kontaroolka naftaadana hayso dad ayaa soo weydiiyay kontaroolka naftaada maxaad ka wadaa noo micnay waa tan oo kale waa tan maanta hani haysato hani cid kasta ayaa la yaaban laakiin anigu waa ogahay meesha hani laga gaaray waana aqaanaa waana aan la socdaa hani kontaroolka nafteeda ayaa gacanteeda ka baxay maxamed koolkoolintii iyo qiimihii ayay ka badiday asaguna abuse iyo liiditaan fara badan ayuu ka badiyay ilaa ay hani isku aragtay inay tahay mukulaal maxamedna uu yahay libaax aysan ka maarmin maxamed waana taas kontarool la'aanta aan sheego inaad cid bili aadan waxa ay ku aragto aad naftaada ku qiimaysid adoo naftaada ku qiimay kara waxa adigu aad isku aragtid haddaba maanta muuqaalkayga halkaas ayaan kusoo gabagabeeyay hadallada dambe ku hadlana waa hadallo aad iyo aad u xigmad badan inta fahmi kartaan fahmaysa waana inii soo diyaari doonaa muuqaal ku saabsan kontaroolka naftaada haddaba muuqaalkan meel sare gaarsiiya hani sheekadeedina halkaas ayay maraysaa bal wixii fikirna commentiga iigu soo qor waxaan kuu rajaynayaa gabar kasta oo Soomaaliyeed sidaan u dhoola cadeeyo nafteedana aan u aaminsanahay nafteedu u aaminto iyo si ka sii badanba wayna jecelahay Allah inay barakeeyo salaam calaykum